Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada kanaalka tarjumaad. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso ah waxay isku qabqabsadeen qofkii xanaaneyn lahaa hooyo. Qof walbana wuxuu leeyahay aniga ayaa u xaq leh hooyo inay ila noolaato ila joogto. Murankoodana wuxuu soo gaaray maxkamadda. Qisadan markii aad dhamaysato ka fikir annaga ka Soomaali ahaan hooyo sideen ula dhaqannaa ama waalidka ma u tartannaa u samafalkooda mise qof walba wuxuu yiraahdaa aniga culays yaan la isaarin. Ka hor intaynan qisadan bilaabin ka mid noqo asxaabta ku xiran kanaalkan. Nin wanaagsan oo ka soo jeeda Sacuudi Carabiya oo ka mid ah dadka caamada ah kiiskiisa wuxuu noqday kiiska ugu yaabka badan maxkamadaha Sacuudiga. Kiis u dhaxeeya laba walaal oo yaala maxkamadda. Magaciisa waa Xayzaan Al-Fahaydi waana nin da' ah. Maxkamadda ayuu ku dhex ooyay ilaa ilinta ay buuxisay garkiisa. Maxaa ka oohiyay? Waxa ka oohiyay Xayzaan waa arin ayada oo kala badanaa aanan dhicin. Wuxuu ku guuldaraystay arin u dhaxaysay asaga iyo walaalkiisa oo ahayd hooyo xanaaneynteeda, taasoo hanti dhan ka haysatay faraanti maar ah. Sidaas darteeda tartanka loogu jiro xanaaneynteeda wuxuu ahaa u samafal oo keliya, laakiin ma ahayn hanti ay lahayd darteeda. Ayada markeedii hore waxay la joogtay wiilkeeda weyn ee Xayzaan kaasoo keligiisa noolaa. Markii uu noqday qof da' ah, walaalkiisa ayaa ugu yimid magaalo kale inuu hooyadiisa wado si ay ula noolaato qoyskiisa, laakiin Xayzaan waa uu ka soo horjeestay. Murankii waxa uu soo gaaray maxkamadda si garsooraha u kala saaro, laakiin khilaafkii waa uu sii darnaaday. Kalfadhiga maxkamaddana waa uu batay. Walaalaha mid walbana wuxuu ku adkaysanayaa inuu asaga yahay qofka ku xaq leh hooyo xanaaneynteeda. Kadib garsooraha wuxuu amray in hooyo la keeno si su'aalo loo weydiiyo. Waxaa keeneen walaalaha ayagoo haddana ku tartamaya keenisteeda. Garsoorihii ayaa weydiiyey qofka ay rabtay inay la noolaato, waxayna tiri ayadoo og waxay ku hadlayso. Kani waa ishayda ayadoo tilmaamaysa Xayzaan, kanina waa ishayda kale ayadoo tilmaamaysa walaalkiisa. Kadib garsoorihii wuxuu ku qasbanaaday inuu u xukmiyo garta sida asaga uu u arko inay munaasab tahay, waana hooyada inay la noolaato walaalka yar, waayo asaga ayaa awoodo xanaaneynteeda marka laga eego farqiga da'da ee u dhexeeya labadooda. Waana sababta uu la ooyay Xayzaan, waayo wuxuu ka shalaynayaa inuu awoodi waayay inuu xanaaneeyo hooyadiisa maadaama uu noqday qof da' ah. Kadib markii ay maxkamaddu xukuntay Xayzaanna uu oynayo ayaa walaalkiisa yiri Xayzaanna aniga ayuu i raacayaa si aan dhammaanteena hal meel ugu wada noolaano. Hooyadii waa ay faraxday, Xayzaanna waa uu farxay sababtoo ah hooyadiisa ayuu u adeegayaa inta karaankiisa ah, maalin kastana wuu arkayaa.